hay-adda wadaniga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano Hafayoko ayaa maanta magaalada Burco u qaybisay 740 qoys oo kamid ah dadkii ay guryahoodu ku gubteen dabkii ka kacay dhawaan xaafadda October ee magaalada Burco gaarsiisay kaalmo isugu jira bilaydho digsiyo bustayaal mareykaneecooyin iyo shirkano biyaha ay ku dhaansadaan taasoo ay dadkani ugu deeqday hay-adda Oxfam GB ayna u soo gudbisay hay-adda Hafayoko oo kamid ah hay-adaha wadaniga ee ku heelan ogaanshaha iyo horumarinta meelaha ay ka jiraan baahiyaha bulshooyinka Somaliland. Ibrahim Xariir oo ah madaxa mashaariicda hay-adani Hafayoko oo ka hadlayay xilli ay ku dhex jireen qaybinta kaalmadan ayaa sheegay in hay-adooda oo kaashanaysa hay-adda Oxfam GB ay u soo gurmadeen qoysaskani dabka ay waxyeelooyinka u geysteen. Aan halkan ku qaybinaynaa alaab loogu talagalay dadkii guryaha ay kaga gubteen maalintii dhaweyto xaafadda October alaabtaas oo ka kooban ugu badnaan agabkii ma garanaysaay guriga ama loo isticmaalayay xaafadda loo isticmaalayay agabkaas ama alaabtaas oo ka kooban bustayaal marakaneeco weelka wax lagu cuno oo kala duwan shirikaano mafiiqo iyo malqacado 14 bishani June ayay ahayd markii dab xoogani uu ka kacay kaam qaxoonto ay ku dhaqnaayeen dad ka soo barakacay gobolada koonfurta dalka Soomaaliya taasi oo waxyeelooyin dhanka hoyga iyo baahiyaha asaasiga ah u geystay dadkani. ugu dambeyntiina kaalmadan ay maanta hay-adda Hafayoko gaarsiisay dadkani danyarta ayaa noqonaysa kaalmadii iyo gurmadkii ugu horeeyay ee dadkaasi la soo gaarsiiyo tan iyo waqtigii uu dabka xoogani ka kacay waxaana hay-addani Hafayoko kaalin firfircoon kaga jirta arrimaha horumarinta bulshada. hay'adda Hafayoko alaab ay ugu deeqday dadkii ay maalintii gubtay xaafadda October ee koortay dadkaas oo ka koobnaa 40 qoys oo loo qaybiyay alaabo ay ka mid yihiin shirikamo bustayaal bacaha roobka dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha dugsi cusub oo Islaamiya laguna magacaabo Maxadka Al-Azhar Sharif kaasi oo uu ka hirgeliyay xaafadda Maxamed Cali ee magaalada Burco qurbajoog Somaliland oo lagu magacaabo Mustafa Axmed Jaamac oo ku nool dalka Sacuudi Arabiya. xafladda xariga jarka dugsigan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi duqa degmada Burco Master Maxamuud Axmed Xasan Dhagala gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Guuleed Daahir Samatar Salaadiin Cuqaal iyo marti sharaf kale oo badan waxaana ugu horreyn xafladani ka hadlay duqa degmada Burco Master Maxamuud Axmed Xasan Dhagala waxaanu tilmaamay faa'iidada ay waxbarashadu leedahay isagoo tilmaamay loo baahan yahay in macallimiinta ka howlgalaysa dugsigan cusub ay noqdaan kuwa la soo xulay oo ka dheer isticmaalka balwadaha xunxun waxaanu maayirku waalidiinta ubadkan ugu baaqay inay kala dheeraadaan carruurtooda aflaanta lagu soo tarjumay afkooda hooyo ee marin habaabinaysa. gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Guuleed Daahir Samatar oo isna xafladdaasi ka hadlay ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay maamulka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta dugsigan Al-Azhar Sharif waxaanu intaasi ku daray Guuleed Daahir Samatar in qaybaha kala duwan ee bulshada xaafadani ay u guntadaan isku xidhnaanta iyo horumarinta dugsigani oo wax weyn ku soo biirin doona bahda waxbarashada gobolka Togdheer. sidoo kale waxa iyaguna xafladdaasi ka hadlay Caaqil Ibrahim Fure gudoomiyihii hore ee degmada Qoyta Cuqaal iyo marti sharaf kale oo badan dhammaantoodna waxay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyo sida loogu baahnaa xilligani dugsigani Al-Azhar Sharif. gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo isna xafladdaasi ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan maamul ahaan dugsigani isagoo tilmaamay inay Ilaahay ka rajeynayaan inuu dugsigani noqdo mid ubadku ay si weyn uga aflaxaan waxaanu gudoomiyaha gobolka Togdheer si weyn uga hadlay intii xafladani ku sugnaa adkeynta nabadgelyada iyo ka dheeraanshaha wax kasta oo bulshada khalkhal gelin kara. ugu dambeyntii dugsigan cusub Al-Azhar Sharif oo laga hirgeliyay ee magaalada Burco ayaa isagoo maxad lagu baran doono diinta Islaamka iyo cilmiga maadiga ahba waxaanu dugsigani wax weyn ka tari doonaa baahida dhanka cilmiga diiniga ka jirta gobolka Togdheer. Maxamed Caawad Maxamed wararka shabakada caalamiga ee Wadani News gobolka Togdheer.